burburkii kadib waa markii ugu horeysay oo lagu guuleysto meesha in laga saaro go'doon siyaasadeed oo muddo dheer ka jiray midaynta iyo isku dhafka laamaha socdaalka iyo jinsiyadaha dalka garowe waxaa si rasmi ah loogu daafuray nidaam soo bandhigaya maanta wixii ka dambeeya hal siyaasad iyo mid maamulba inay ku shaqayn doonto hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya oo sanad ka hor 20 Febraayo 2017 caasimadda Puntland Garowe ka hirgelisay dhismo weyn oo loogu adeegayo hawlaheeda iyo bixinta baasaboorka Soomaaliga. waxaa farxad weyn ah inaan halkaan ku daahfurayno xafiiskii dowladda federaalka ku lahayd Puntland oo laanta socdaalka iyo jinsiyadda oo la mideeyay oo raggii horay u soo joogay Puntland iyo kuwii dambe la magacaabay iyo dhammaan la mideeyay oo gurigan quruxda badan ay soo guurtay runtii waa aad iyo aad wax farxad u ah waa wax rajo aan aad u sugaynay in Soomaaliya oo hal meel laga maamulo laanta socdaalka iyo jinsiyadda in aragno 27 sano kadib waa guul taariikhi ah weey guulaha ka dhiman insha Allah taala hay'adaha kalena waa sugaynaa waxa cusub mudan in shirka 3 biloodlaha ahaa isteedada Soomaaliya migrationeedii 8 bisha lagu qabtay magaalada Garowe marka waa guul soo hoyday ummadda Soomaaliyeed arrimahaasi waa aragtaan shaqada way socotaa waa kala fududahay dadkii daraad iyo tii ka horeysay hawshooda aad ka badnayd maanta waa aragteen waa kala fududaadeen insha Allah dadka shaqo loo hayaa waxaan u fadhinaa dadka inaan u adeegno bulshadayada ilaa iyo waxa balanta tahay 3 casho soo socda ilaa iyo maqribka in shaqada la gaarsiin inta kala fududaanayso gobonimo waxaa dilay xumaan lala gucleeyay nin qabiil u guura ma galo guri barwaaqeede garwaaqsaday waa mid ka mid ah awoodaha dastuurku siinayo dawladda dhexe sida gaashaandhigga maamulka lacagta siyaasadda arrimaha dibadda socdaalka iyo jinsiyadda oo ahmiyad gaar ah u leh dalka iyo dadkaba waxayna ku amaaneen dadka la socda shaqada immigrationka gaashaanle sare Maxamed Aadan Jimcaale Koofi oo ay ku tilmaameen shakhsi wax badan ka bedelay hanaankii hore ee hay'adda isla markaana soo kordhiyay aragtiyo cusub iyo hufnaan shaqo isagoo noqday mas'uulkii koowaad oo xarumo ka hirgeliya gobolada mahadaas balaaran waxaan isleeyahay dawladda hadda jirto mudane farmaajo hogaaminayo Wasaare Khayre iyo agaasimaha guud ee hay'adda jinsiyadda socdaalka mudane Koofi oo runtii dhalinyaro ah taariikhda xusi doonto Soomaalidu waa iska leeyahay dhacmiiran baan uga mahadcelinayaa guusha la gaaray waxaan kale uga mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Abdul Maxamed Ali Gaas oo isaguna arrinta higiliyay in Puntland la mideeyo gudaha Puntland la mideeyo federal lagu wareejiyo hadda baana maamulka shanaad oo Puntland oo jiri jiray guud hore ma soo dhamaysan sababo jira awood kullu kuma guuleysan laakiin waxaan leenahay taariikhda xusid doonto mudane Cabdiweli Soomaaliya waa mideysay dalka Soomaaliya baa leh haddaan socdaalka iyo jinsiyaddu uusan mideysnayna dalku waa kala tegay waa calaamadaha dawladda Soomaaliyeed ay ka siman tahay cid kastoo ka qayb qaadatayna waa mahadcelinaynaa waxay xulku u dhigtay qodob weyn oo Soomaalinimada Puntland oo dhan dekad iyo airport iyo custom qof ka soo galaya raasi casayr iyo raasi kabooni hal meel laga maamulayo nasiib weyn bay oo noloshaydu dawladda kadib ay soo gaadhay aad baan ugu mahadcelinaynaa kiyor guri karaab waxa marka waxaan leenahay waxa mahad iskale Ilaahay ka sokow xukuumadda ugu horeyso nabad iyo nolol
iyo Janaal Maxamed Aadan Koofi oo mideeyay xafiisyada hay'adda socdaalka jinsiyadda dhammaan isteedada dalka kullana ahayd u dambeysay la mideeyay ka sokow dhaqaajinta shaqada hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda waxa isweydiin mudan haddaba sidee u dhacday midayntu muxuu ahaa cudurka hore u jiray oo iminka daawada loo helay Soomaalidu wax ma sugto waxa laga yaabaa inaan malab soo waday malabada soo wada oo aad dacar ka qaaday inuu qaylo yiraahdo inta malabka soo gaarsiin inuu qaylo waa dhici karta malabkii maanta la joogaa qof reer Puntland oo halda Puntland ah oo Puntland ka xukunaa ma jiro kullagaasina guud Koofi wax xukuma waana heer federaal weeye